maanta waxa idin soo gudbin doonaa qayb ka mid ah nolosheeda iyo meesha amaanta aan taaganahay waxaana ku jeclaystay waxa ay tahay maadaama aniga aan ahaan jiray iskuuley ciyaal banooni xaafado badan oo reer Muqdisho aan soo degay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنو وناكسن داوديال إذا لهانتي بميل وليبا أو جوكتان يسي وليبا مقال كجنال كورباهين تورر كمان تايدين سو غاريو كسو دبادا وانتا نلوش الشخصيقا وتضباد وليبا عاو أو كلاوغا هذالنو مركاليس مقال وناكسن داوديال xubinta nolosha shakhsiga caaba waxaan ku soo qaadan doonaa qaybteeda koowaad liibaan aadan cali dadka badi ay u yaqaanaan liicaato xubinta nolosha shakhsiga waa xubin aan uga hadli doono saameynta shakhsiyadeed ruux markaan ka hadlayno kani waa liibaan aadan cali oo ku magac dheer liicaato xubinta nolosha shakhsiga ayaan ku soo qaadan doonaa ugu horeyn waxaynu ka hadli doonaa waa kuma liibaan aadan cali halkee buu ku dhashay halkee buu ku soo barbaaray aniga waxaan joogi jiray degmada Huludaag gaar ahaan xaafadda Tokyo ayaan deganaan jiray ugu dambeyn waan ka guuray waxaan degay warta nabadda xaafadda Laba Dhagax sidoo kale waxa aniga ku dhashay waan ku soo barbaaray degmada Yaaqshi xaafadda hadda ugu dambeeyay aan degnaa saddexdaas degmo ayaan degnaan jiray waliba aan ka ahaan jiray dhanka banooniga waxaan ahaa nin 24 saac banooni u heelan waxa saan iga dhigaba waa banooni heerkiisa waxbarasho liibaan aadan cali sportska ma isku fiican yihiin horeen aniga hadda isguda galaba waxaan ahaa arday wax ka baran jiray iskuulka SYL 2010 2011 2013 ilaa 2016 ilaa 2017 dhamaadkii waxaan ahaa ardayda ugu firfircoon iskuulka ama fasalka danna kaliya aan fasal dhigo bilaabay macnaha aniga ba aan ogahay iskuulku meesha part 5 Huludaag SYL Huludaag part 5 ayuu ahaa kaliya ayaa fasal dhigo bilaabay waxa igu soo biiray wiil aan iloobi doonin marnaba intaas oo san isku kursi aan soo ahaan jirnay waxa lagu magacaabaa Yusuf Saciid Maxamuud waa arday aad qaali igu ah hadda Muqdisho uu ku dambeeya oo jaamacadna ka dhigtay insha Allah nolosha kuma ciisho baraa yaraan qal waxa jiro awal xifaaltami jirnay waxa kamid ahaa team xaafadaha markii la isku baxayo xalwada markay tahay masalcad ay taalo daafaca ugu necba sawiraan laga qaado wallahi nin agoolan aan ka dhigay horta nooba laga boqo waan ahaan jiray oo degmada Huludaag aad looga cabsado anigoo waliba aad caato ah marka nin waa iska diyaarsan ahayo macallimiinta aad bay jeclaan jiray habeenka marka badina wallahi waxa xasuusta muufaal soo siin jiray in la wado aasili macasar la igu diri jiray saamicna xoog ugu sii yeesho waa nin lagu tastaa aan jiray yarka daafac igu adka soo mar aan marnaba iloobi doonin sawirkiisa waan hayaa gmail-kayga xalay ka dhaxelay yarka lagu magacaabo hanad degmada Huludaag daafac u ahaan jiray sanadkii hore 2016 sidaan rajeynayo qof nuuce ah ayuu ahaa yaraantiisa sidee ugu suura gashay in uu noqdo mid ka mid ah YouTuberiska ugu caansan gayiga Soomaaliyeed ugu dambeyn macallimiinta qaar waxa jira aad u kaftan badan oo nagu dhex jiri jiray markay arkeen markaas hadalka aan ridayo in lagu wada qosolayo waxa la gartay riwaayad ugu horeysay iskuulka in la ii doorto oo la riwaayadaas sameyn doonto riwaayadaas waxa ku liigu matalay Mooriyaan nacaya walaashiis macla aabiis macla familka dhan ba dhacayba qoraya lii dhiibay inta waa caleemo la ii saaray teeta beebo baa loo maraa halka lagu xiray aniga daan sameyn jiray ilaa alaan kana way daba socotaa waxaas waa talent aniga talent ayaan u lahaa in aan sameeyo arrinka ayada ah hadda markii aan sameynayo janaalada ay ka arkaysiin riwaayad ama markay tahay markii la hadlayo telephone vlog la sameynayo dadka qaar niyadooda waxa ku jiro lii waa wiil da'yar muusan qaan gaarin wali waa 15 jir ama 13 jir oo kale sababtaasna waxay tahay waxa keenayo marka aan video sameynayo waa is farxad galiyaasi qofka aniga i daawanaya oo farxad galiyo ay laakiin dadka qaarkood ma dareensana aniga hadda hadii aan ku nolosheeda reality-ga waa kan ku hortaaganahay waan iska dhigi karaa qof shibana hadalna ku sheegi karaa laakiin markii aan rabo in aan ka qoslinayo waxa igu soo dhacayo saaxadii iskuulka markaan dadka ka qoslin jiray oo
maamooyin iyo aabbayaal iyo walaal iyo ardadii kulligoodii aan ka qoslin jiray ay ugu soo dhacay marka halkaas aan ka soo qaatay waan riyooyin aniga aan lahaa in aan iskuulka markaan dhameeyo kadib aan tago dalka Kenya aan halkaasna magac ka sameeyo bulshada dhexdeeda ah anigu wax idab dara aan sameeynayba talentiga aniga aan lahaan aan u soo saaro bulshada warbixintan gaarka ah aan uga hadlayno nolosha walaalkan youtuber Liibaan Aadan Cali ayaa badi ka soo qaadan doona muuqaal uga hadlay noloshiisii kaas uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee YouTube Liicato Official